Assalaamu calaykum. Balwad. Markaan ka hadlayno waxaa niyadaada ku soo dhacaya sigaar, jaad, khamri, xashiish iyo waxyaabo naftaada dhaawacaya. Maanta muuqaalkeena waxaad kaga bogan doontaa balwadaha guusha. Ka hor muuqaalka, haddii ay jiraan mowduucyo si gaar ah kuu taabanaya oo jecesha inaan ka soo hadlo, fadlan commentiska iigu reeb. Waxaa jira balwado ama hiwaayado badan oo ku gaarsiinaya guul, balse maanta waxaan soo qaaday 3 balwad oo muhiim ah inaad yeelato si aad u gaarto guul iyo horumar kaa sare mariya halka aad maanta joogto. Balwadda koowaad, kicidda waqti hore. Ka muslim ahaan, waxaa jira xigmad noo gaar ah oo Ilaahay noogu talagalay nooguna sheegay diinteenna oo ah ku tukashada salaada subax jamaacada. Taas ayaa waxay kuu suurtagelinaysaa inaad waqti hore ka kacdo hurdada. Ka kicidda hurdada waqti hore waxay kuu sahlaysaa inaad qabsatid shaqo maalmeedkaaga, soona gudatid waxyaabo kuu qorshaysnaa inaad qabato subaxaas. Laakiin haddaad ku dahdo hurdada, waxaa kaa lumaya hadafka, sidoo kale waqtigaaga wuxuu gelayaa ciriiri kaa hor istaaga inaad hadafkaaga dhammaystirtid. Hadafka balwaddan aan kula wadaagayo waxa ay tahay, waxaa jirta in maskaxdaada 20 daqiiqo ee ugu horeysa ay ku wanaagsan tahay inay wax qorshayso, wax ku xafidid, waxna ku maamushid. Sidaa awgeed, hurdadaada aysan kaa lumin guushaada. Balwadda labaad, wax akhriska. Inaad wax akhriso waxay kuu suurtagelinaysaa inaad barato wax badan. Middan ayaa keenaysa inaad fahanto micnaha nolosha. Maxaa yeelay waxaad akhrinaysaa qoraallo ama buugaag kala duwan oo ay ku qoran yihiin cilmiyo fara badan. Markaa cilmi badan taqaanid, waxaa kuu saacidaysa xirfadaada inaad ka miro dhaliso. Sidaa daraaddeed, akhri inta aad awooddo, si gaar ah waxaad hibada u yeelatay. Siyaadso maalin kasta, wax ku dar, qorshaysana inta waqti aad wax akhrinaysid. Maxaa yeelay waxay tani kuu fududaynaysaa inaad qabsato waxaad qoratay sida ay tahay. Wax akhrisku waa muhiim, ka faa'iidayso waqtigaaga. Inta aanan u gudbin dabeecadda ama balwadda saddexaad, fadlan ha iloobin inaad subscribe dhahdo channelka, commentiskana aad taladaada noogu reebto. Balwadda saddexaad, go'aan. Hiwaayaddan waa muhiim. Inaad shay ku dhaqaaqdo waxa uu u baahan yahay 3 shay. 1. Fikir. Inaad qaada dhigto, gedgediso, soo xooraamiso shay aad jeceshahay inaad qabato. 2. Qorshe. Inaad isku aadiso sida ay suurtagal u tahay inaad waxaan u qabato. 3. Ficil. Inaad samayso waxa aad ku fikirtay aadna qorshaysay. Sidaa la ajligeed, intaan oo qodob waxay ku suurtagelayaan waa go'aan, kaas oo micnihiisu yahay inay kaa go'an tahay inaad hadafkaaga gaarto. Waano, haddii uu jiro wax niyadaada ama riyadaada ah oo rabtid inaad gaartid, ha ka labalabayn. Caqabad kasta oo ka hor timaada, isku day inaad ka gudubto, go'aan aad ka qaadato ama aad ka hortagto. Maxaa yeelay guuldarradu waxa ay ku baraysaa sida loo guulaysto ee kaama dhigayso mid aan wax qaban. Sababtoo ah waxaa guuldarraysta qof dadaalay. Qof aan hawl qaban ma guuldarraysan ee nolosha ayuu ka dhacay. Daawade, haddii ay jiraan balwado kale oo aad ogtahay in guul lagu gaaro, fadlan commentiska noogu reeb. Hana iloobin inaad subscribe dhahdo, gambaleelkana aad furato, haddaad ka heshayna like saartid, si ay muuqaaladeenna kuu soo gaaraan. Mahadsanid. Muuqaalkeenna intaas ayuu ku egyahay maanta. La soco kuwa xiga.